بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو إنجنير هباني عبد هباني وكميدا معلمية جامعة كدقة كلية إنجنيرك. وحدونا نحن كوزا بندقنا برنامج كهاد ليا حالدها معلمها انتهاجن نقول دونا برنامج تحنا وصعان دونا برنامج كاسي والله مقع بحي لازمها قوري إلا مقالو iyadoo la sugay tayadooda iyo quruxdooda iyo qaabkooda waxa haboon hadaba in aynu mar walba dadweynaheena iyo dadka reer Soomaaliland baa in la socodsiino waxyaabaha noloshooda ku haboon waa laga maarmaan dhismaha guri waxaana jirta wasaaradda la yiraahdo hawlaha guud iyo guriyeynta oo shaqadeedu ay tahay horumarinta dhismayaasha dadweynaha iyo kuwa dawladda waxa wadan ka dhacay laba xaaladood ama laba dhibaato labada dhibaato oo ay sabab u ahaayeen dhismayaal dibay dhismayaashaasi oo waliba ahaa kuwa bilow ah oo ay ku socotay dhisidii iyagoo dhisidii ku socotana dumay mid wuxuu ahaa masaajid laga dhisay Hargeysa oo dumay habeenimo sabada la shubay saqafka sare waxa Soomaalidu ruufka u taqaano ama islaabka concrete-ka ee sabada sare la shubay wuxuu geystay khasaare dhaawaca iyo mid hantiyeedba ka kalena waxa dhisme bakhaar laga dhisay wajaale oo mid geystay dhibaato dhimasho iyo burbur hantiyeedba haddaba mas'uuliyadda inaga saaran dhismaha maxay tahay anaga wadaan nahay dadka injineerada ee dhismaha bartay dadkana bara dhismaha de waxa ay tahay mas'uuliyadda naga saaran inuu dadka gaarsiino sida uu ku sugmayo dhismaha ay dhisanayaan tayadiisu okay horta inaga dalkeena dhismayaasha laga dhiso ma aha dhismayaal kuwa la yiraahdo dhismayaasha waaweyn ma aha waa dhismayaasha yar ee fudud iyo dhismayaasha dhexe waddanka kaba dhisna guri 10 daqiiqo kaba dhisnaba waayahay dhismaha marka la dhisayo ee la bilaabayo horta waxaan imika soo qaadan doonaa dhismuhu waa imsa qaybood dhismuhu waa saddex qaybood waa dhismo fudud mid dhexe iyo mid weyn saddexdaas waa dhismaha horta loo qaybiyaa marka engineer ahaan guryaha la dhisayna laba qaybood baa loo qaybiyayo wuxuu noqonayaa qayb dhulka hoostiisa ku jirta dhismaha iyo qayb dhulka dushiisa ku jirta oo qolada Ingiriisku ay yaqaanaan substructure iyo superstructure qaybta dhulka hoostiisa ku jirta waxa weeyaan seeskii iyo foundationkii iyo qodaalkii guriga la soo qoday kaabadii hoose cagii loo soo aasay hadduu sabadaha inuu deeha guri caadi ah oo jajuurana seeskii la soo qoday qaybtaasi dhulka hoostiisa ku jirtaayo waa substructure qaybta kalena waa superstructure waa wixii ka sareeya seeska waaye dhismuhu noocyadiisa marka la sheegayna wuxuu ku kala duwan yahay qalabka uu ka dhisan yahay dhismuhu dhismaha uu badan yahay oo dhaqankeedii markaad noqotid mid ba qoriyo ka dhisanaya mari oo waa buulde markaad ku noqotid meelahan dhexe ee dadka dabaqada hoosana jiingad weyn waa qori iyo jiingad waaye markaad hore soo socotidna waa guri dhexe oo guryahan dadku iskaga nool caadi nolosha caadiga ah waxa weeyaan waa jaajuuriyo iyo looxay jiingada iyo marmarka ay waxa kan saddexaadna waxa weeyaan kan ka samaysan sabada mid kale oo steel structure la yiraahdo jiraayo ka samaysan biro mid looxan ka samaysan uu jiraa laakiin nooca biraha ka samaysan ma dhisan oo dalkeena kuma badno inkastoo jiraan guryo imka biraha la geliya kan ka samaysan looxaantana kuma dhisna wadankeena walaad awoorka aynu uga baqana iyadoo looxo inagu qaaliyo oo inaan looxo inagu dhulkeena looxbada aanu ku oolin waaye waxaan isticmaalnaa inagu waxa weeyaan dhismaha ka samaysan sibirka ama sabad ha noqdo ama jaajuur ha noqdo noocaas baan isticmaalnaa waaye haddaba maxaa keenaya inuu dhisme dimo se maanta kuwa aynu ku jirno ee dhisan ee magaalada Hargeysa ka dhisan magaalooyinka Soomaaliland oo dhan yaa inoo damaanad qaaday inta ay jirayaan kulli weyn ognahay guri kasta cid baa dhistay ama qofkii la ha dhisto ama shirkad ha dhisto
how long intee oo sano ayuu guriga jiraya iyo inoo damaanad qaaday su'aalahaas si aynu uga jawaabno waxa muhiim ah guriga marka la dhisayo maxaa loo baahan yahay gurigu markuu ka dhismayo meel ay dawladdu jirto oo dawladdu shaqaynayso waa in dawladdu la socotaa xaaladda guriga uu dhismayo nashaqadiisa inta qol uu yahay ama inta dabaq uu yahay ama wax kasta oo gurigaasi ka kooban yahay waa in horta wasaaradda hawlaha guud la socoto waa in la socotaa imika oo kulli waa lagu baraarugay labadii shil ee dhacay ilaahayna kuwa dambe inoo ma keenayo waayahay waxa jira waxyaabaha fashiliya dhismaha dhisankiisa macnaheedu inuu dhismahaasi quality ee tay ahaan uu noqdo mid dhisan oo cimri dheer leh waxyaabo fashilinaya ku hor imanaya jira مثلا imika wadankeena ka soo qaad guri marka la dhisayo qofka guriga dhisanaya muxuu u baahan yahay qofka guriga dhisanaya imika wuxuu u baahan yahay inuu nashqad helo markuu nashqad helo dawladdii hoosana uu ka soo qaato warqadii jeexista guriga oo qiimo yar lacag laga qaado qofka isaga guriga inta wixii ka dambeeyay cid uma imanayso haddii uu shirkad siiyay shirkadda iyadun baa wadaysa oo wax ka jeegareynaya shirkaddani in ay dhismihii si loogu talagalay ee ku habooneed inay dadweyne galaan ama qofkii lahaa uu ku noolaado oo intaasoo sanadada cimri intaasi jiraya hubin lahayd ma timaado marka waxyaabo horta waxa muhiim ah shay kasta wuxuu leeyahay wax tayo leh iyo wax bila tayo ah macnaheedu wax raandiis leh iyo wax bila raandiis shay kasta si aynu cuntada cunayna tayadeeda iyo arrimaheeda aynu iskaga hubino baabuurka shidaalka lagu shubay tadiisa loo hubiyo laababku ay u jiraan baa waxa jira laab lagu macnaheedu shaybaad lagu baaro alaabta dhismaha tayadeeda anu intan ogahay laba shaybaad baa jiray mid ay leedahay hay'adda wadooyinka SRA ee loo oran jiray Somaliland Road Authority oo lagu baaro materialka wax lagu dhiso macnaheedu qalabka wax lagu dhiso alaabta wax lagu dhiso shaybaad kalena waxa la jaamacadda Golis qaybteeda engineerka oo aan ardayda ku tababar jiray sida u baaraan alaabta dhismaha tayadeeda shirkadaha ula yimaada alaabtaasi baaristeeduna loogu baaro surface-ka lagu bixiyo okay iyadoo labadaas ay jiraan haddana labadaas isticmaalkooda la isticmaalaya ma badna haddana dhismaha magaalooyinka ku kordhaya wadanka aad buu u kordhaya dadkeenu ma yaqaanaan markaa oo dadka shacabka guryaha dhisanaya in arrimahaasi ay jiraan wax lagu baaro alaabta dhismaha laakiin sida sharciyanka ah waxa waajiba wasaaradda hawlaha guud oo uga wakiilo dawladdii arrimaha dhismaha iyo guriyeynta in ay ku waajibiso in material qalabka alaabta lagu dhisay guriga haday sibir tahay haday ciid tahay haday tahay sabad lagu soo baaro shaybaadka dawladda ama shaybaadka jaamacadda lana soo raaciyo marka warqadii shaybaadka warbixintu ay ku qorneed alaabta tayadeeda hadda toona shirkadda dhisaysa ay warqadaasi u geyso hawlihii guud ama hawlihii guud ka eegto okay marka waxa sugmaya tayadii alaabta lagu dhisay gurigaas taasi waxa weeyaan waxa la yiraahdo material quality test macnaheedu hubinta tayada alaabta lagu dhisay guriga labaad baa jirto iyadana la hubinayo soil test baa lahdaa Soomaaliya waxa weeyaan baarida tayada carrada waxa weeyaan halkan guriga uu ka dhismay dhulka uu guriga ka dhismay adigu leedahay jagadaada culays intee leeg bay iska xajin kartaa ciidaadaasi dhulkaagaasi ma guri weyn bay iska xajin kartaa dabaqeynaysa saaraya ah ma guri yar baa ka dhismaya waxa weeyaan taasina tijaabinta tayada dhulkaaga waayahay waxaad aragteen halka intaynaan dhaafin aan tusaale soo qaato waxa la arkaa markasta oo guri la dhisay dhulka waa la qodaa hadduu fooq yahayna kaabadihii loo geliyay baa loo qodaa godadkoodii hadduu guri dawas bangala yahayna seeska jeexdiisii baa la qodaa waayahay dhararka la qodayo yaa go'aamiyo horta waa su'aal jawaabteedana idinka aniga adiga fadhidaanay bal horta isla weydiiya oo waxaad is weydiisaan intan la qodayo hadday dheer tahay iyo hadday go'aaman tahay yaa go'aamiyey oo ciidan dhisaysa u go'aamiyey in taa qoto ka raagi maayo waan ku jawaabiyay waxa weeye waxa go'aamiyey marka wadada saxda alla maraya ee sharciga dhismaha
tijaabadii ciidda ka soo baxday marka ciiddii guriga la qaado tijaabadii la soo mariyay shaybaarka ka soo baxday ayaa waxay noo soo go'aaminaysaa cabirka aynu qodayno dhulkeena haddii aynan ciiddii tijaabin qodida dhulka aynu qodnay ma aha mid ku dhisan cilmiye waa mid ciddii dhismaha waday uun ay iska go'aansatay marka miyaanay ahaynba bilowga dhisme in ay ku xidhan tahay seeska soomaaliduna waxay tidhaahdaa guriga marka la dhisayo seeskaa laga bilaaba seeska haddaba bilowgiisii waxaa ku xidhan in aad isticmaasho ciidda guriga shaybaarhka aad geyso shaybaarhkii uu kuu soo jawaabo oo uu ku yidhahdo guriga intaa leeg hadaad dhisanaysid cabirka intaa leeg dhulkaaga seeska hoos u qod taasi la-aanteedii haddaad iska qodtid adigu ma aha gurigaagaasi mid cilmi ku dhisan jiritaankiisana cid ku damaanad qaadaysa ma jirto waayahay laba arrimoodoo marka halkaa waxaynu ku sheegnay material taski tijaabadii alaabta ah macnihii shaybaarkii alaabta guriga lagu dhisanaya sidii birkii iyo jaygii iyo sabadii iyo arrimahaas birtii iyo oo materialka dibadda inooga imanaya aan kuu sheegayo alaabta dibadda inooga imanaysa waa sibirka kow garaydka labadaasi iyo sabadii marka la sameynayo oo jaygii ciidiyo dalkeena laga helaa tijaabaa lagu sameeyaayo waxaa la yidna lasoo saaraa sabadda culayska qaadi karto inta aan guriga la shubin baa lasoo tijaabiyaa iminkana waxaaba soo baxay shirkado cusub oo sida shirkadda Telesom ee sabadda iibisa baajin balaanka dee markaad adigu garanaysid sabadda doonaysid magaceeda waa sabadihiyo M20 iyo M15 iyo baa la yidhahdaa magacyadooda waad u diranaysaa dee noocii baa lagu soo keenayaa dee noocii ku habboon markaa baad halkii ku shubay waxaanay taasi damaanad qaad u noqonaysaa jiritaankii gurigaaga oo ku dhisnaanaya cilmi markaynu ka tagna labadaa qodob ee kale ah tijaabada alaabta guriga lagu dhiso iyo tijaabada dhulka uu gurigaaga ka dhismayo shaybaarka labadaa lasoo mariyo waxaa kale oo jira waxa la yidhaahdo xirfadda shaqaalaha dhismaha dhisaa way badan yihiin oo mid waa kan waa biralaabkii hadda aan kuu tiriyo waa wastaadkii waa biralaabkii iyo nijaarkii saddexdaasi waa xirfadlayaasha inkastoo imanayaan ranjiilihii iyo kii marmarka dhigayay iyo xirfadlayaashii yihiin oo kii leerka gelinaya xirfadlayahay oo kii biyaha gelinaya xirfadlayahay haddaba dhismaha ugu badan waxaa ka qayb qaata markaynu dhisanayno dee sibirka guryaha jaajuurka ah wastaadku isa saaridda guriga isku saaraya waxaa ku kantaroolaya injineerka oo aqoon u leh toosinta cabirada ugu dhisan yahay gidaarkaasi isagoo isticmaalaya nashqadiisa haddii uu ka baxo injineerku ama aanu meesha joogin ninka wastaadka ee dhisaya waa qof gacanta ka shaqaynaya qofka gacanta ka shaqaynayana markasta inuu hawsha uu qabanayo hore iskaga dhameeyo ayuu ku fikiraa taasina ma keenayso dhismo tayo leh haddii aan lagu kantaroolin ilaahay amarkii markaa shaqaalaheennu iyaga oo noloshu ay bartay shaqadan ay ku shaqaynayaan intooda badanna aan iskuul looga soo bixin haddana gacantoodu way fiican tahay marka lagu kantaroolo habdhisanka ay u wadaan shaqada labor skillska waxaa ka mid ah nijaarka marka uu ku xidhayo sabadda marka la shubayo guriga xaggiisa sare jeegag baa lagu xidhaa loox baa lagu xidhaa waxaasi cabir bay ku wada shaqaynayaan cabirkaasi waxaa xidha ninka nijaarka ah adigii injineerka ahaana waad ku kantarooleysaa halkaasi haddii cilmigii saxda ahaa qofkii lahaa injineerka ah uu ninka shaqaalaha ee nijaarka ah uu ku kantaroolo iyaduna ma keenaysa dhib oo waxay noqonaysaa dheelitiranka shaqada alaabtii baynu soo tijaabinay waynu shaybaarka soo marinay dhulkeennii baynu shaybaarka soo marinay shaqaalihiina waynu toosinay qof xirfad loo injineera ayaynu dulkeennay intaasi marka la sameeyo gurigii ilaahay amarkii haddaanay masiibo dabiici u iman guri tayo leh oo cilmi iyo aqoon ku dhisan baa halkaa ka soo baxaya waayahay waxaa kaloo jira haddaynu intaasi ka dhigno habka wanaagsan ee dhismaha loo mari karayo waxaynu hadda eegaynaa hababka khaldan ee waddankeena ka shaqeeya kow waxaa ka mid ah inuu qofka guriga dhisanaya hadduu doono isaguba uu yidhaahdo anigaa guriga dhisanaya oo nashqad baan u baahanaya nashqadii markan soo qaato gurigii anigaa wadaya waayahay nin wastaadana uu dirto uu ku yidhahdo maanta imisa wastaad baa shaqaynaya intaa lacagtoodii uu soo qaado uu intuu un bixiyo qoladiina iska shaqaysata un isagoo ka cararaya malaha injineerka guriga u diranaysa lacag saayid ku saaraya laakiin bakhaylku laba jeer buu khasaaraayo waanu ku dumi hadduu cid wax yeelana isagii baa laga dooni
hadduu cid wax heli waayana hantidiisiiba khasaaraysa. taasina sharciga waddanka inuu wax ka qabto ayuunbaa muhiima. waxaa kaloo iyaguna jira kambaniyo samaysan oo aanay dad injineer ah aanay lahayn, dad ay iska samaysteen. marka iska samaysteen isay dhismaha ugu jireenna dhismihii iskala qabsaday, laakiin experience ay ararkeen un le mid ay cilmiyana aan lahayn. dadkaasina ay ku shaqeeyaan xirfad aanay lahayn. way adag tahay anigoo injineera inaan idhaahdo qof xanuunsanaya dhakhtar baan u noqonaya kumana dhici karo, sababtoo ah aqooni mali. maxaa i dabraya? waxa i dabraya damiirka oo ii sheegaya in aanan waxaan aqoon u lahayn. markaa qof kasta oo xirfadda injineerka ku jira oo aan soo baran, waxa sharciyana in laga joojiyo shaqadaasi ciddii lahayd ee waxaan soo baratayna ay ku shaqayso. mas-uuliyaddeennada lagala xidhiidho dhismahaasi maadaama qofkaasi sito cilmi wax dhisme. waayahay, markaynu intaa ku soo noqonno daawadayaal, barnaamijkeenan wuxuu noqon doonaa mid taxana ah oo aynu kaga hadli doono dhismaha guri ilaa magaalo, sida loo dhiso iyo waxyaabaha loo baahan yahay. haddaba maanta barnaamijkeenan oo noqonaya kii koowaad halkaasaan ku joojinayaa. magacaygu waa injineer Habane Cabdi Habane. waad mahadsantihiin.